arrin ku saabsan khudbada tacliiqeeda oo laba arrin ku saabsan ayaan qaadanaynaa waxaan isku daynaa inaan soo gaabino waxay ahayd waxaan soo qaadanay jumcooyinkii hore hijrada sanadkan soo bilowdayba nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu Madiina imaaday hawlihii uu qabtay iyo dawladii uu ka aasaasay iyo sidii uu aasaasay acmaash ugu muhiimsanaa ee uu ku bilaabay ee uu qabtay waxaan soo qaadanay maanta su'aal ah horta in dadka muslimka ah ay yeeshaan madax inay yeeshaan xukunkeeda muxuu yahay soo hadda مثلا axkaamta islaamka la isma weydiiyo salaada xukunkeeda muxuu yahay waa waajib soonku xukunkiisu muxuu yahay waa waajib yani waxna waa waajib waxna waa mubaax wax waa karaahiyo axkaamta waa taqaanaan oo shariicada marka waxa laga yaabaa dadka inaan aad ugu baraarugsanayn dadku inay hoggaan yeeshaan inay ra'iis ama madaxweyne ay yeeshaan xukunkeedu muxuu yahay dadka qaar waxa laga yaabaa inay u arkaanba inay xaaraan tahay oo loo baahnay madaxweyne la sameeyo qaar waxa laga yaabaa inay u arkaan wax laga maarmi karo haddii rabaan la sameeysan haddii rabaan la iska deynaayo oo mubaax ah sida qadada oo kale haddii rabaan maanta la qadin haddii rabaan la qadaynaynin oo mubaaxaadka la yiraahdo yani dadka way ku doonayeen qaar waxay u arkaan in xukun laga sheekeeyo iyo sidee loo doortaa iyo maxaa waajibada laga rabaa in siyaasad loo yaqaano oo ayna ku haboonayn in masaajidada iyo lagu soo qaado ay ku haboon tahay oo kali ah baarlamaanka iyo golaha wasiirada kuwa jooga inay arintaas ka hadlaan oo qofkii ka hadlo oo masaajidka uga hadlo waxa leeyahay waaba sheekh waaba wadaade siyaasadda muxuu ka rabaa marka dadkii waa wareerkaas galay waxaan soo qaadanay marka xukunka in imaam la samaysto in hoggaan la samaystaay islaamku xukunkiisa muxuu yahay jamhuur ahlu sunna dhan waxay isku waafaqsan markii laga reebo wax yar oo ku leeyahay al-murji'a iyo khawaarij ku leeyahay oo ayagu aaminsan inaan loo baahnayn in imaam la samaysto mubaax iska yahay dadka muslimiintu laga rabo qof walba meesha uu joogo inuu ka fuliyo islaamka ee kala dambeyn iyo hoggaan iyo inaan looga baahnayn markii laga reebo kuwaas jamhuurta kale waxay qabaan inuu waajib yahay waxayna u soo daliinayaan adillo waxa kamid ah adilladaas aayada quraanka ee dhahaysa yaa ayyuhalladhiina aamanu adiicu allaha wa adiicu rasuulahu